يا من هديتم للنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan weydiihaynaa dadka xaflad odayayno needka nabiga calayhi salaatu wasalaam saddex su'aalood. waxay tahay mida koowaad, hal haadihi ixtifaalkan ma daaca mase waa macsiyo? haddii aad tiraa waa macsiyo, waxaan ku leenahay ma banaan ixtifaalka, waayo waa arrin nahyi oo la reebay oo macsiyo ah. haddaad tiraa waa daaco, su-aala ka dhalanayso, nebiga cilmi mu u lahaa daacadaas ama jaahil ayuu ka ahaa? waa su-aal taagan. haddaad tiraa jaahil ayuu ka ahaa, waxaa nebiga ku tuhantay inuu jaahil yahay, arrinkaasna waa gaalnimo. haddaad tiraa cilmi u lahaa, su-aal kalaa ka dhalanayso, mana soo gaarsiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam daacadaas ma noo sheegay? haddii aad tiraahid nama soo gaarsiinin, waxaa ka dhalanaysa ayada nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad ku tuhuntaa inuusan gudan risaaladii. ilaahina subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku yiri, yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik fain lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu. nebiga wuu gutay risaaladiisa, ummaddana waa gaarsiiyey. arrinkaasna dhammaan dadka dhan ka markhaati ah. haddii aad tiraahid mana soo gaarsiin ama waana soo gaarsiiye tiraahid, waxaan ku leenahay qul haatuu burhaanakum, la kaalaya xujooyinkiina cadcad in kuntum saadiqiin. walaal, macsiyadu iyo bidcadu waxaa aada u daran bidcadu, waayo minka macsilaha inuu tooba keena ayaa laga yaabaa, way soo geenu dambaaba, laakiin ahlu bidac weligiis ma tooba keenaya, waa ku dhimanaya. shaydaankuna ahlu bidac ayuu jecel yahay. walaal, ilaahay dartii u iskaga dhaaf. يا من هديتم للنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما. وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما.